رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ثم ما بعد، حين كسو جرني كتابك الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، waxaynu ku jirnay alkabiiratu thaaniya, kabiirada labaad, xadiiska tobnaad markaynu maraynay baa waqti sagaalaad baa waqtigu inaga dhacay. waxay darsigeennan uu ka bilaabmanayaa xadiiska tobnaad. wa qaala sala allahu calayhi wasalama ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar. qiila ya rasuula allah hada alqaatilu fama baalu lmaqtuul? qaala inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih. wuxuu nabigeenu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi, ida iltaqa almuslimaani, labada muslim hadday kulmaan, bisayfayhimaa, seefahooda ay ku kulmaan. seeftu waa aaladii wakhtigaa qaalibka u ahayd ee lagu dagaalamayay, laakiin wax kasta oo ay ku dagaalamaan haddii laba muslim ay kulmaan, falqaatilu yacni midka la wax dilay iyo walmaqtuulu midka la dilayba fi naari, naarta ayay ahaanaya. qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi, rasuulka ilaahay ow haada alqaatilu, midkan wax dilay, amruhu waadix, arrinkiisu waa cadyah, waan garanay kan wax dilaye, famaa baalu lmaqtuuli, midkan la dilay xaalkiisu muxuu yahay, maxaa lagu galay isaga? qaala wuxuu yidhi nebigu, innahu kaana wuxuu ahaa xariisan, mid ku dadaalaya, calaa qatli saaxibihi, saaxiibkii dilkiisa mid ku dadaalaya ayuu ahaa. xadiiskan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa falka ruuxa muslimkaa dilkiisa inaan gacan keliya laga geysan. maxaa yeele waxaa la xisaabiyey maxay? niyadii. innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi, wuxuu ahaa mid dilka saaxiibkii ku dadaala. ayb, bal axaadiista markaan sardino ayaan ka hadli doonaa, waxaa ku jira fiqi. wa qaala sala allahu calayh wasalam, nebigu wuxuu yihi, laa yazaalu lmar'u, ruuxu ka suuli maayo fii fusxatin, ay fii wuscin, waasac inuu ku sugan yahay, diintiisa si nashaada oo firfircoon cibaadaadkiisa inuu u gudanayo. fii fusxatin, shay waasica inuu kaga sugan yahay, min diinihi, diintiisa uu kaga sugan yahay, maa lam yatanadda, ay maa lam yusib, intaanu asiibin, bidamin xaraam, dhiig xaaraana intaanu asiibinoo ku dhicin, ruuxu diintiisa wuxuu kaga sugan yahay, waasac buu kaga sugan yahay. macnaha cibaadadii baa u dhandhamaysa, dhulkuna ku ciririyoomi maayo. daacada iyo cibaadada alle subxaanahu wa tacaalana midiba mid bay u dhiibaysaa. laakiin ruuxu marka uu dhiig galo, nolosha ayaa ku ciririyoomaysa, daacadii iyo cibaadadiina wuu ka fogaanayaa. nebigu marka wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh, laa yazaalu lmar'u, ruuxu ka suuli maayo fii fusxatin, ay fii wuscin, waasac inuu kaga sugan yahay, min diinihi, diintiisa uu kaga sugan yahay, maa lam yatanadda, ay maa lam yusib, intaanu asiibin, bidamin xaraamin, dhiig xaaraana intaanu ku dhicin. xadiisku waa xadiis saxiix oo imaamu axmed baa fii musnadihi ku warinaya, wabni maaja ayaa warinaya, waalxaakim ayaa isagana warinaya min xadiisi cuqbata ibni caamir radia allahu canhu. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi, laa tarjicuu haw laabanina bacdii, aniga gadaashay, kufaaran gaalo haw laabanina, yadribu uu garaaco bacdukum barhkiin, riqaaba bacdin, barhka kale uu qooraha ka garaaco. maxaa loola jeedaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd?
iyadoo aynu ognahay dhiiggu inuu yahay macsiyo iyo kabiira min alkabaa'ir waxaa loola jeedaa ama afcaashii gaalada ha shabbihina ama waxaa loola jeedaa kufrigani waa kufrun duuna kufrin weeyo waa macsiyo iyo kabiiro weeye weyn saa darteed kufriga ayaa qaybsamo midna waa midka diinta lagaga baxayo midna waxa weeye waa mid macsiyo iyo kabiiro ah fariintan weliba nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ahmiyadda ay leedahay boqolkii kun ee qof ee soo xajiyey carafo taagnaa buu wuxuu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina dimaa'akum wa amwaalakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada wa fii baladikum hada laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd ayuu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka ahmiyada ay leedahay waxaad ka dareemaysaa dardaarankii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ummaddan muslimiinta uu kaga tegay bay ahayd khudbooyinkii xajka uu jeedinaya xajatulwadaac uu jeedinayay aad buu ugu soo celcelinayey xadiisku waa xadiis saxiix ah oo yacni markaa aad dareemaysaan inuu yahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ay warinayaan وقال بشر بن مهاجر باوحوري عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري لقتل المؤمن روح مؤمن كادل كيسا أي أعظم كون عند الله إله سبحانه وتعالى أكتيسا من زوال الدنيا الدنيا إني سوشو الدنيا أردني إني سوشو وماشا أي كبحضو جدول كنوريد أي كبحضو إلهي أكتيسا وحقي ما كمله laakiin maxaa ilaahay agtiisa qiimo ka leh waxaa ku weyn hal qof oo mu'mina ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku weyn halkaa qof ee mu'minka ah ee la dilaybaa adduunyada oo dhan oo la baabi'iyo taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa kaga weyn xadiiska waxaa ku jira ibraahim nin la yidhaahdo ibraahim ibnu muhaajir ayaa ku jira oo nasaa'i uu yidhi ibraahim ibnu muhaajir laysa bilqawiyi nin xoog badan maaha laakiin waxaa xoojinaya riwaayada kale shawaahid kaluu leeyahayoo la zawaalu dunyaa yacni adduunyada oo suusha ayaa ahwanu cala allahi min qatli rajulin muslim nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh riwaayo kale la zawaalu dunyaa ahwanu cala allahi min qatli mu'minin bikayri xaqin riwaayadkaasa xoojinaya saxiixuljaamicu saqiir yacni 5,075 ilaa 5,076 وقال عليه الصلاة والسلام نبي وحوله صلوات الله والسلام عليه لا يزال المرء الروح كسول مايو في فصحة واسع إنه كسوغنيه يعني واسع وكسوغنيه من دينه دينتي سو كسوغنيه ما لم يصيب إنتان أصيب دما حراما ديق حارانا إنتان أصيب دينتي سوى واسع إيمانكي سو سيادة يا عبادتي ضاعي أفريسا لفظها بخاري بإسكالي طيب وقال عليه الصلاة والسلام نبي وحوله صلوات الله والسلام عليه أول ما شيء متك وقهرية أو يقضى الحكم بين الناس دتك دحدود الحكم يعني آخر مرك لك الحكم هي خلائق إلهي أجر سوري في الدماء ديجا قوي سيل يسوع فتنا يا مركا يعني حديثي كلي أها النبي صلوات الله وسلامه عليه وحده أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة حليسوا فتنيا إلهي سبحانه وتعالى محكمتي سعادلك بني آدم كي مخلوق مركو ربي سبحانه وتعالى أكل قرسوري وحنا وحوي وحقوق إلهي سبحانه وتعالى أوليه وحنا وحوي وحقوق أي كدحيس محي بني آدم كي آدمها كدحيس يعني وحي حقوق ذا الله سبحانه وتعالى يتكاليفتي شرعك هيد سؤال لويديو أدونك مؤمنك وحوقه الرئيسة صلاة دي سيوقه الرئيسة أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أما حقوق ذا بني آدم كي قرصور كالوك لقرصوريو وحوقه الرئيسة وحل ويديو ليقي يوحي حقوقه يسكولها ينبع لوك القاضي طيب حديث بخاري في صحيح كورنا يا كتاب الديات
baabu qowli اllahi tacaala wman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannama waa min xadiisi ibni cumar radi allahu canhuma. waqaala firaas wuxuu yidhi can shacbiyi caamir ibni sharaxiil ashacbi can cabdillahi bni camr bni caas wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi akbaru lkabaa'iri dembiyada kabaa'irta waxaa ugu weyn al-ishraaku billaahi ilaahay subxaana wa tacaala oo loo shirki sameeyo xuquuqdii ilaahay uu iska lahayo cid kale loola qaybiyo iyo wa qatlu nafsi naftii in la dilo yacni ilaahay dhiiggeeda uu ka xarimay iyo wa cuquuqu lwaalidayni labada waalidin caaq lagu noqdo isagaana kabaa'irtan xabad xabad u tirin doona imaamku raximah llahu tacaala raxmatan waasica. bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya yacni kitaabu alaymaan wanuduur buu ku warinayaa baabu alyamiin alqamuus baabkaasuu ku warinaya raqamka min xadiisi cabdillahi bni camr bni caas ayuu ku warinaya. وqاaل wuxuu yihi xumayd بن hilaal أنbأna نصر بن cاaصم أنbأna cقبة بن mالك عن النبي صلى الله عليه وسلم qaal wuxuu yihi إن اllaha alle subxaanaه وataعaalى abaa calaya waa iga diiday yani muxuu iga diiday abaa calaya towbata man cid towbadiisuu iga diiday qatala dilay mu'minan ruux mu'mina ruuxii ulakac u dilay towbadiisa alle subxaanaه وataعaalى waa iga diiday. ayb in allaha abaa calaya man qatla mu'mina qaalaha ثaلaaثan saddex jeer buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. wahada kaasina calaa shardi muslimin shardiga muslim buu ahaaday yani xadiiskaa ibnu abi shayba ayaa fi lmusanaf ku warinaya wاnasaa'iyu fi sunan اlkubra ayuu ku warinaya walimaam axmed fii musnadihi ayuu ku warinaya ibnu abi caasim fi اlaaxaadi wاlmathani abu yacla fii musnadihi wabni xibaan iyo keyrkood baa warinaya. wuxuu xadiiska nebigu ku leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay waa iga diiday ruux mu'mina ruuxii ulakac u dilay toobadiisa alle waa iga diiday. toobaddana waxaynu ognahay maa caddaa wixii shirkiga ka soo hadhay iyo gaalnimada yacnii haddii ilaahay kuu roon yahay ruuxu hadduu ku dhinto isagoo aan ka toobad keenin uu ku dhinto inuu yaallo maxay taxta almashii'a in shaaa cadabahu wain shaaa gafara lahu. maxaa lagaga jawaabayaa marka si muctaqadka ahlu sunnaha marka loo waafajiyo waxaa lagaga jawaabayaa toobaddiisu aqbalitaankeedu waxay ku xidhan tahay shuruud bay ku xidhan tahayoo iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala cuquubo iyo aan la soo marin oo wixii xuquuqahee lagu lahaa aan laga gudin jannada ilaahay subxaana wa tacaala si yani markaa bisabqi cuquubatin markaa ma gelaya waa in wixii xuquuqa ee lagu lahaa laga soo jara. dilka nafta ruuxa muslimkaa dilkeeda waxaa ka ratibmaya saddex xaq. xaqa koowaad ee ka ratibmaya waxa weeye waa ruuxan aad dishay xaqiisii. xaqa labaadna waxa weeye waa dadkii qaraabada iyo ruuxan dhaxalkiisa lahaa awliyaau lmaqtuul xaqay ay lahaayeen kaasi marka waxaad kaga fakanaysaa dee ama qisaas ama inay ku cafiyaan ama inaad diyo siiso. maxaa kuu soo hadhay xaqullaahi xaqa ilaahay. xaqa ilaahayna waxaad kaga fakanaysaa toobadda aad ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keento oo tooba nasuuxa aad la timaado. xaqii bini aadamka iyo warasadiina maxaad kaga fakatay inaad qoortaada dhiibato oo lagu cafiyo ama diyo lagaa qaato ama laguu dilo. maxaa soo haray qofkii aad dishay xaqiisii asagoo xagguu kugu sugaya isagoo xagguu taagan yahayoo nusuustan waciidka ahi waa yani macnaha ay tilmaamayaan wuxuu leeyahay isagoo dhiiggii ka da'ayuu imaanayaa rabbiyow bal weydii wuxuu ii dilay. marka isagoo xaqiisii waa kuu haystaa haddaan ilaahay subxaana wa tacaala kaa cafiyin oo isaga raalligelin alle subxaana wa tacaala intuu raalligeliyo xuquuq uu ku raalli noqdo alle subxaana wa tacaala iyo sawaab iyo ajar uu ku raalli noqdo aan ilaahay kaaga sabirsiinin. wa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi maa min nafsin naf ma jirto naftaasoo tuqtalu la dilayo dulman dulmi loo dilay ma jirto
إلا كان وحاهانيا على ابن آدم إن آدم دوشيس وحاهانيا إن آدمك الأول هرية وحاهانيا كفل أي نصيب غيب هانسا ومن دمها ليجيدا وكلية سبب لأنه محايا لأول من روحي أهرية بوها يصن القتلى دلك تشديي مركا عد كستو السنة يدقن حن تشديسا عدة طريقة كرة عضي دم بجيدا وحبوك يالانيا إلهي قرآنك وحكوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم إن آدم كي دلك جيستي بن آدم كدلك بري نف كستو بن آدم أما الروح كستو مركا حق در لودلو دلكي سقيبك يالانيا قيبك يالانيا محايلي لأنه أول من صن القتل وروح يقهر يدلك تشدي متفق عليه. وعن ابن عمر عبد الله بن عمر وحال قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكوري قال وحنبي يقولي من قتل الروح دل معاهدا يعني الروح بلن لقول معاهدا مركل ليه يعني إمام كمسلمين تعاهده عليه إمام المسلمين معاهدا مركل إلى هدنا يعني وحوي استجا مسلمين تبلن لقالي مركا من قتل معاهدا هي معاهدا واسكبت لم يرحكما يعني لم يرح ما أريو أما لم يرح لما أرسيو أما لم يرح ما أريو صدح والود بديه الجنة جنة ما أريو يعني لم يرح ما أريو أما لم يرح لما أرسيو أما لم يرح ما أرصدو رائحة الجنة جنة عرفت يدي أرتيذا محلو وإن الريحة أرتيذا توجد وحالقها ليا من مصيرة 40 عاما يعني مسافة 40 سنة الله صعده مركز أجرتو جنة عرفت يدي أرتيذي أدقون كيدا هليسا لكن استقوا مهلي محلو وكذا مقلي ويمعني أخرجه البخاري وصوصاري والنسائي حديث كان ضمن مركان أبو هريرة عنها عنه وأن معناه كشرة المامدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحال قوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكوري قال وحوري ألا هو يا من قتل الروح دل نفس النف معاهدة يعني معاهدة ولا لبلمي لها يوسقناتي ذمة الله سبحانه وتعالى دمديس يا مجنتيسو وذمة رسوله رسول كمجنتيسو أي يوسقناتي فقد أخفر وحوش بي ذمة الله سبحانه وتعالى مجنتيسا ولا يرح يعني لما أرسيو رائحة الجنة أرت الجنة إيا عرفت هذا وإن الريح أرت هذا لا يوجد وحالقه ليا من مسيرة 40 خريفا أفرتن ديرود ميل الله سعودان لقه ليا سعاه الترمذي. طيب حديث كان شيخ ناصر المركي ورا الضعف بوكو حكم شن كنت طبقل يا كنتن يلبو يعني جامعي محوها صحيح ضعيف الجامعة لكن شواهد كلا يا حوشينيسا صحيح هذا أيونكو صحيح يلي حكمك يعني ذنبه مركو شواهد هلي لبكون صدح بقول يا كنتن يلي رقمك شواهد ولي أنه حكم من حديث أبي بكر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أي حوشيني dadka dhiigoodu aanu bannaanayn qofkii muslimka ahaa waad soo ogaatay gaaladana afar asal ahaan ma bannaana dhiigoodu ma bannaana afarna cuhuud iyo ballan bay ku xiran yihiin afartan dhiigoodu marna aanu bannaanayn waxa weeye ilmaha yar iyo haweeneyda haddaanay dagaal ku jirin iyo odaygii weynaa ee cutushka ahaa iyo raahibkii kaniisadda ku jiray afarta asaalatan ma banaana yani saddex kala jira oo aanay ku iyadana heshiisyo la galay aanay yani darteed dhiigoodu yani marka ay u helayaan cismo iyo dhowrsooni iyo dhiigooda in iyo naftooda in loo badbaadiyo xakamida adimi mid kale adimiga loo yaqaano waa midka dawladda muslimiinta ku hoos noolo iyagu jisyada ay ka qaadaan hada ma jire ilaahina uu yiri hatta yu'du al-jisyata an yadin wa hum saqiruun
كلمات وحال يراهدا معاهد بال يراهدا ومدك دولة المسلمين أما بلشدة المسلمين أي بلن كاللقى شيء وكان حديث كأدو تلمامي كصدحات وحال يراهدا المستأمن مين قال له هصدقه مستأمن وحاوي بلشدة المسلمين أما سيجود ها هاتو أما سيجار عنيد ها هاتو أما قف ها هاتو قف قاسدو دور الرجل يضمر ها هذه أيا قف كان مجنجل يوسي شق وقبنا أيا أصلا كياني مجنتي سين لو دافو أصلا ما بنان مجنت متغني وياش تذكروا وين واقرنا يا محمد لكن لا يستو مجنت هنا نقرنا طيب وحاكوسوا حديثك يعني أم هاني ما وحي مجنجل سيفتح مكة لمنين أو دماشياشيد يقول لك حد حتى يكون أنا مجنجلين علي بعد دمعين أنتو خلطور إلى هوين باطاي ماذا وح مجنجلين كر نبي يقول تكتوه يديسي وحو نبي كوري وانو نبت قلني وبد بادي نص ما تطبيحنا عدة بد بادي سي أم هاني مش كان مقف باكين صدي أما الشركات باكين صدي أما هدي إلهي يكورو يهي إن مركا مجنتي صلور رافو أو لقو حد قدبه مركا ما بنان بس لو حد فقها يعني معاصر كرتب مية يعني وقت كان العصر كرتب مية مسلمين تو يجوا بلمها أي لجلان قالد لجلان مسلمين تو مركا أقليات يهينو يعني ميلو يجا لجا أود بدن يو أقليات أي يهين في شيء كأب يعني لقى شيء ومضاها لقى شيء مبورين كرتيد في شيء كأب لقى شيء يوروبا تكتي مريكان با تكتي مخها انجليز كا تكتي استراليا تكتي هجيس با لغش هجيس كا لغشي waxa weeye baasaboorkan iyo aqal ay ku siiyeen iyo mxuha waxan ay ku siiyeen waxay ku siiyeen wadankooda inaadan dib aadan u keenin bay ku siiyeen طيب hadad marka balanta ka baxayso wa imma takhafanna min qawmin ala khiyana fanbid ay daaqkeed mxuha فانبت إليهم على سواء أطور يعني بلنتي أجيسيو حتى رابح الغالي دوكمنتي جيني واكن بلنتي نينا وان كبحي كومتشرو سكنسية أما وحي أنت قصوا حري لما أقوله شرعي وما أقوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري من أعان الروح أكالمي على قتل مؤمن روح مؤمن دلكي بوكالمي بشدر كلمة بركض بوكالمي لقي الله إلهي بلكل ما مكتوب يضعي كقرنتهي بين عينيه لبدي سيندوت آئس وحكقوستي من رحمة الله حديث إلهي وكقوستي حديث كان وحو تلمام يا قف مسلمة دلكي سوقو كالمي كلمة بركيد وارنينك الدل بيحي معاك صبح وارنينك انت كلمة ما يسترمن طيب وحولي ما انت قيامة وحوي ما دايضو انه سلح لي ذا ايكو قرنتين حديث إلهي وكقوستي ابن ماجه ورني إمام كل لكن كما تقنا وحولي وفي إسناده مقال سند كيس مقال باقصغا ما تبربطنا يزيد بن أبي السياد الشامي باكوشر ومنكر الحديثة وأنا الضعيف حديث كان شغلباني وحكو ضعيف ضعيف هذا الشنبق لي يصدح وعن معاوية رضي الله عنه قال وحدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك حكم كل سمين ما هذا حديث ضعيف نقضين وحان مقليبير النبي صلوات الله وسلام عليه يقول استغفر لكل ذنب كستا عسى الله إلهي وحمديه سبحانه وتعالى أن يغفره إنه دافع إلا الرجل ننكي مويانه ننكاسو يموت دينتي كافرا قال لما كل دينتي روح قال لما كل دينتي دي إلهي ودافع ماي أو الرجل أمننك ويقتل الدلي يعني الدلي مؤمنا روح مؤمنا متعمدا سكسة أو لكعن الدليه أخرجه النسائي باورينيه صحيح سنن النسائي أيوه صحيح على صدح كنت ضابق يسقال يتمرقم كصحيح هذا شن بقول يكوبيته حديث كان مركب هو مشكل وإن لقيت شوابا اللوبة هي معتقد كأهل السنة اللي وافجيه إلا دلكو حكم دي وكبيرة من الكبائر حلوش إذا كل ذنب
وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ذنب كستو الروح بني آدم ككدع حدو إلهي سبحانه وتعالى أصفى النقضاء توبت كانوا إلهي وكأقبل يا توبته وكأقبل ابتداء سلمركي ولا أقبل يعني بلو قبل ولا أقبل إلا رجل قتل مؤمنا نن مؤمن دلي ولا كعسب أدلي أستقل لقى أقبل مايو محان لقى أقبل إن توبدي يعني بلا سبق عقوبة أيضا عقوبة أنا أخرى مرنو حقوق دي اللي قولها أن لقى قوينين حقوق دي اللي قولها أن لقى قوينين واتين صوشي يقني يصدح حق أن يكون تعلقان الكبيرة الثالثة كبيرة الصدحات وحوية السحر كي يفلكي واي لأن الساحر السحر له لابد وحلق مارمان أن يكفر إنه قالوا له سحر له وقال قال الله تعالى إلهي وحوري ولكن الشياطين أيا كفروا قالوا بي محيكو قالوا بي يعلمون الناس ضدك أي بريان السحر كأي بريان حقو ريسي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا حيث النبي سليمان وحودتك وكوهيستا شياطين لو سخري سحر بكوهيستا تيبا قرآن كجواب وحليل وما كفر سليمان سحر وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سليمان ما قالوا بينه والنبي إلهي أو هدي هبين لو وحيون شياطين قالوا ذي حيكو قالوا بين يعلمون الناس ضدك أي بريان السحر كأي بريان مركز السحر فالأهان إن لا سميه وقالمه إن لا برتو تعليم تيسونه وقالمه وما الشيطان كوما سقنان الشيطان كالملعون ملعون كأها غرض أجيده وكلي في تعليمه بريتان كأوبريو الإنسان كأوبريو يعني السحر كأوبريو إلا ليشرك به إنه إلهي سبحانه وتعالى أشرك سميه إنه ساحرك أقالوا بمويدنك لكمله شياطين توقفكن أشقين ميسو إلا قال لما استجا أي كرده إنه قالوا مقصد كيوجد ذا سينا أبرز ماها تعلين سبلاش شياطين تو أي قفكن السينس وقال الله تعالى إلهي وحوري عن هاروت وماروت عن هاروت وحكيري وماروت وحكيري لبا ملك بي أحايين طيب وما يعلمان مبران لبضا ملك من أحد روح مبران سحر حتى يقول إلهي لهدان إنما نحن فتنة أياننا فلا تكفرها قالوب برشد السحر هو قالهم فيتعلمون وحي كبرنيين منهما لبدا حقه وحي كبرنيين يعني ما شيء بيكبرنيين يفرقون به أي كوك لك حيان بين المرء الروح الحديث وزوجه حاسكيس والنوع السحر ككمد حاسك ينك إن لك حيو سحر التعديل بالي هذا طيب أيدي بالو سوقلين أبي صار له قدك وحكى لي بوس أورس أصدقي بسوق قول سوق لي أما يضع يعني استجا وحكى له قدك لباح مص بلا يكسر أرضيو بقول نقنع طيب هل كان مرك حقيقي دليل قال لي ماذا كجترا إمامك ودليل شنو وحوك كجترا إنما نحن فتنة فلا تكفر ورنقو ملائك إلهي سبحانه وتعالى أو فتنة للابتلاء والاختبار لو قلت لك قليبا نحي إيه قالوا بين أي ليه حيمان كرتمرك إشكال ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إيه محيطة مفسرين تا لحظة أيضا ضد بعد لحظة الله قارنا ملكين تاسي كعررين إلهي تأويل اسكو ديانو ملكين لانك إنه هوس ديغانو لو بقرب أهايين وكذا قولنا آيات الظاهر كذا يكسعته وحيد هدين لبا ملك بي أهايين إلهي وفعال لما يريد ملائكتنا ومضيعين إلهي بي أضيعان لكن وحلوش ذي للابتلاء والاختبار والامتحان ومضوا إنك لبحضه أيالوش ذي طيب إلهي وحيد سبحانه وتعالى إلى أن قال إلهي أكيد سبحانه وتعالى ولقد علموا وحي أقادين لمن اشتراه الروح سحر كإبسدي يعني لمن روحه اشتراه سحر كيسو إبسدي وحي أقادي ما له إناني وصقناني في الآخرة آخرة ينولش الضنبه من خلاق وحن نصيبة إيا وحده فآخرة إنان كل حين
فترى وحضر كيساوي إمامك خلقا خلق بعضر كيسا كثيرا بدن ومن الضلال ضدك اللنصن كمدا كواسو يدخلون أقليا كواسو يدخلون قليا في السحر كي قليا معناها فلكي سحر كأنه يستمعيان بي قليا ويظنونه وحي لين يعني حراما فقد حرام كليه لين يعني قال لي ما لين مايان وما يشعرون من الدريم يعني أنه سحرك الكفر قال لي ما إنويه فيدخلون وحي قليا في تعلم السيمياء في تعلم إني برتان السيمياء عند سرعاتك سيمياء وعند سرعاتك طيب وحكاغا دغي neefkan inuu indhaha afka ka gelayo gadaal uu ka baxayo وحكاغا دغي qofkani inuu gubanayo indhihi yaani bini aadamka ayaa waxa loo bedelaya qof halka maraya waxa laga dhigaya inuu qaawan yahay qiso intay ka dhacday nimo wadaad ay iga waramayeen oo gobol ka dhacday intay meel dacwo u tageen baa waxay arkeen in dadkii oo dhan rigeystay ummadii rigeystayo yiri boqol yaani intaas oo ari intaas oo geela hadaan la ii keenin waa la idin baabiinay maxaa dhacay awoodayda hadda idin tusayaa weey bal awri keena awr baa loo keenay dadkii wuxuu uga dhigay intuu dhinac istaagay inuu awrkii markuu afka kala qaado afka uu ka gelayo oo gadaal ka baxayo caamadii oo dhan uu rigeystay asagoo boqol ari iyo xoogaa loo ururiyay baa nimo wadaad meeshii tageen نوجي رانك آية كرسي ذي لا أكستاجين استقول مي أورك دين عرض يوديك لون بالعرك ورآوي وحي سماه أورك كده حبح نيم بهذه آية كرسي ذي لا تاجي راد ولا قاتين واي سحر ولا مرك هذا دركته لا بدو يقول عود يهدي إلهي يكون يقول والله آية كرسي ذا حداد قبصته عند الصراعات دق تاسي دمدم تاسي ما شقيناش لكن أود كل دجال مساوين أدو قلبي جاكنا قويين هاي تقوى إيماننا أضلاع هاي إلهنا سبحانه وتعالى أتوكل صنته في تعلم السيمياء عند الصرعات يعني إن برتان بيجليان يو عملها إن يسميان وهي أيضنا محض السحر وسحر برحلة وفي عقد المرء إنك إن لجحر عن زوجته حاسكسي إن لجحره أي جليان وبرانيان وصمينيان وهو كاسنا سحر واحد حاسك إن ننك لجحر حاسكس لجتشوجي وسحر تعديل كين سوشيجين وفي محبة الزوج ننك إن لتشعلسي ولمراته هوين ديسي إن لتشعلسي وفي بقدها يدي إن لو عرقليه وبقده إن سجل لو عرقليه سحر التحبيب كنا وباشي أينون نقاني مديدة وينو إيمان دونتا طيب وأشباه ذلك أرنك وحي شبه بكلمات باستعمالها مجهولة لقد جاهلية أكثرها كلمات كابدن كودنا شرك وشرك وضلال بادي كلمات كأو استعمالها حتى كون قرداسها قرى مكران كأي قرداسها سمعية انتو ذا بدن قرانكم قرى أنك طبعا إنك بدن فرفرنا مقعية شني يحدقوا iyo goobooyin ba hal eray oo yaani sunta lagu dhixgeliyo quraan lagaaga dhigayo ba bismillaah la dhixgelinaya ama arrahmaan kaliya la dhixgelinaya tayib waxa uu meesha ku qoray dhamaantood waa magaciyo jin oo xiriir uu la leeyahay marka sheekhu wuxuu yiri waxay isticmaalayaan bi kalimaad majhuulatin laga jahliya aksaruha badankoodu shirkun wa dalaalun wa shirki iyo baad وحد الساحر السحر ولا حد كيس وحوي القتل إن لدلويه طيب لأنه محايل كفر بالله إلهي بكقال سبحانه وتعالى أو ضارع الكفر أما قال لماذا يشبهي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قحوري اجتنبوا كالإرادة السبع الموبقات تدبد الدنبية وحلاقة كالإرادة فذكر منها وحكشك السحر كايوكشك فليتق العبد أدونك هكبق ربه ربه هكبق ولا يدخل ينقل فيما شيء يخسر وكو خساري به ما قاسب الدنيا والآخرة الدنيا آخرة وكو خساري ولا يدخل ينقل أدونك فيما شيء يخسر وكو خساري به ما قاسب الدنيا والآخرة الدنيا آخرة وكو خساري
haddii sixiroolihii xadkiisii la yidhi waa gaalnimo ninka u tegayna nebigu wuxuu yidhi man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila cala muxamedin sala allahu aleyh wasalam sidoo kale nebigu wuxuu yidhi man ataa caraafan sixiroole iyo faaliye iyo wax sheegsheeg ninkii u taga lam tuqbal lahu salaatan 40 leylatan 40 habeen salaad laga aqbali maayo 40 habeen salaad laga aqbali maayo nebiga waxay weydiiyeen salawaatullaahi wasalaamu calayh mararka qaarkood bay noo sheegaan warkaasaa run noqda maxaa ka jira laysa bishay buu yidhi wax jira maaha yacnii hal kelmadood oo xaqa buu shayddaanku kor ka soo maqlaa markaasuu midkii la shaqaynayay dhegta ugu tuura markaasuu 100 beenood uu ku daraa buu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh ويروى وحال وريا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحال وريا أنه قال إن حد الساحر السحر ولا حد كيسو وضربة قراعد بالسيف سيف إن لقوا قراعوا لجل والصحيح الصيد الصحيح وحوي أنه يعني حديث كان من قول جندب بن عبد الله وي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام جندب بن عبد الله الحديث صح موقوفا يعني سوى موقوف أيو أنصحي لكن ما أنصحين حديثكم يسوى مرفوعة قصة جندب بن عبد الله بيكون عظم سيدة أورينيو يعني المسي في تهذيب الكمال مجلد كشناد بقول أفرطني يصدح أبو قاسم البغوي في معجم الصحابة وكورينيو ضبراني في المعجم الكبير وكورينيو والبيهقي في السنن الكبرى أبي عثمان النهدي باوحوا لي جندب بن عبد الله باوحوا دلينين سحر ولاء وليد بن عقبة ورقي أمرضي غير بني أمية كمدها أيا وحو يردنين سحرولها نينكي سحرولها أها أيا وحو تسيي وحل إلى هذا دماشات إيو لبكو حوضو إسدل يومدنا لتشبين يتسي ضدك مركز جندب بن عبد الله انتو الصوق قادوا مرسوه اللابتي أيو دلي نينكي بصيف قلق قصار ضدك باك لياعي وحولي وروحبها كلياعينه idinka idin ma jeedin inaan idin argagax galiyo ninkan sixiroolahan doonaya inaan dilo afata'tuuna sihra wa antum tubsirun ayadaas aqriyay wala xiray adigu markii dambe wala sii daayay saxaabiga وقال يعود بجال ابن عبدة يوحي أتانا وحنويم كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنويم قبل موته انتانوا لمن كهر بسنة سنة كهر عمر بن الخطاب انتانوا لمن وريكته يدنبال يفرين وصوص ريبان نوتمي أن اقتلوا الله كل ساحر متكستو سحر ولا يو ساحرة هوين كستا أو فلك إيا سحر كتقان وحوير فقتلنا 3 سواحر وريكتدي بان نفلين وصدح سحر وليالا ندلني وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تعالى وحال قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحوير 3 صدح لا يدخلون الجنة جنة قلمايان مدمن خمر جميدك دائما وقادع رحم قراب قيس ومصدق بالسحر يمدك السحر كالرميست يعني دخول كاسنا وحين نلوى دخولا مطلقا يعني دخول مطلقا أو حساب لآنا وهدي إلا يكون يوحي حقوق يدن بقلين أن لقسوا قوينين مقليان حديث هو صحيح هذا لح بقول هدي إلى يكون هي تضباطني يسديد رقمك إمام أحمد با في مسنده يعني مكة كورني حديثك أو يعلى يا في مسند كورني ابن حبان أي يسقون ورني خرائدي في مساوي الأخلاق والحاكم في المستدرك وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود وحال قوري رضي الله تعالى عنه مرفوعا وحول الرقى اسكتفك وحلا اسكتفه إيا والتمائم قرداسها إيا مكرانكو إيا والتولة مديددو شرك وقالنمو أيها النبي صلوات الله وسلام عليه وشركي وحا أباهن أن كلمة إن لفافة هي كلمة الرقى اسكتفك وحا لو قيبنا يا وحا لا اسكتف يا لبا قيبود با لو قيبنو حدي وحا لا اسكتف يا قرآن يا ذكر يا أذكار أو يحي وبنايا حديث إمام مسلم في صحيحه وكور النبي وحيد أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رقيدين يتفمدين إيصو بندقا لبما لبوير النبي صلوات الله وسلام عليه اسكتفك هدان آنو الشرك أحين ضيب
shuruudda yani markaa laga doonaya waxa weeye shaygan la isku tufayaa saddex shardi haddii laga helo culimmadu waxay ku ijmaaceen inuu bannaan yahay kow an yakuuna bikalaami illaahi ow biasmaa'ihi wa sifaatihi wa bilisaani alcarabi inuu waxaan la isku tufayaa qur-aan yahay ama magacyada ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa ama shay luqada carabeedoo la fahmayo marka uu yahay ayib wamaa yucrafu macnaahu iyo wax macnihiisa la fahmayo haddaad jinniya xaadiriso ruqyadaasi ma bannaano wa an yactaqida ana aruqyata laa tu'asiru bidaatiha qodobka labaad waa inaanu ictiqaadin ruqyadani inay iyadu saamayn leedahay wuxuu ku dawoobayaa ay tahay ilaahi subxaanahu wa tacaala in qadartiisa uu ku dawoobo bal bitaqdiiri illaahi tacaala ayib tiwalada iyo madiidada iyo kuwan kale haddii ilaahay kuu ron yahay xukunkoodaasay caamkoodaasay ku ahaanayaan atiwalatu madiidadu waa nooc weeye min asixri sixirka ka mida wa huwa kaasina waxa weeye waa taxbiibu almar'ati haweenayda in la jeclaysiiyo ila sawji ninka in la jeclaysiiyo haddee madiido waad garanaysaa dhengad baa la soo qaadi sixir baa waxbaa lagu dhufan ninka naagtu ay diidaan naagtii baan kari waaye gabadh reeroodoo meel joogto wuxuu leeyahay gabadhaasaan rabaa inaan la baxo inay raacdo hay ushaa ku dhufaa la leeyahay sidii neef lo-a iyadaa ku daba ordaysa marka waa taxbiibu lmar'ati haweenayda in la jeclaysiiyo ila sawji ninka watamiimatu tamiimaduna kharasatun kuul weeye tarudu lcayna ay aaminsan yihiin inay isha celiso waclam ogow buu yidhi hadalkii horuu tacliiqinayaa shiikhuyo wuxuu kala saarayaa qofka ficilkan u sameeyey isagoo aqoon u leh iyo qofkii jaahilka ah waclam ogow buu yidhi ana kaiiran in badanu min hadihi alkabaa'iri kabaa'irtaa ka mida bal caamatihaa dhammaanteed ila alaqala wax yaroo ka mida mooyaane yajhalu waxaa ka jaahila oo xukunkiisa aan garanayn khalqun khalqi oo kaiirun fara badan oo min alummati ummadda ka mida taxriimahu xaaraannimadiisay ka jaahili yihiin wamaa balaqahu ma gaadhin assajru nahyigii iyo reebitaankii fiihi kabaa'irtaa layska reebay iyo walal waciidi waciidkii ku soo arooray fa haada darbu noocaa isagaa fiihim dhexdooda waxaa ahaaday tafsiil iyo faahfaahin ba ahaaday fayenbaqii waxaa habboon lilcaalimi ruuxii caalimka ahaa ee cilmiga sharciga xambaarsanaa waxaa u habboon an laa yastacjila inaanu ku degdegin cala aljaahili ruuxii jaahilka ahaa xukunka uu xukumayo inaanu ku degdegin bal yarfaqu bihi wuu u dhimrinayaa wa yucallimuhu wuu barayaa mimaa shaygii callamahu allaahu ilaahay uu baray walaa siyamaa siiba kuma sii jirto idaa kaana hadduu yahay qariibu lcahdi cahdigiisa iyo islaamnimadiisu miday cusub tahay qariibu lcahdi bijaahiliyatin islaamnimadiisu miday cusub tahoo jaahiliye ka soo galay oo qad nasha'a ku barbaaray fii bilaadi alkufri dhulka gaalada ku barbaaray albaciidati ee fog wa usira waa la soo qafaashay oo wajuliba waxaa loo soo jiiday ilaa ardi alislaami dhulka islaamkaa loo soo jiiday wakhtigiisii buu ka hadlayaa imaamku dee imaam muslimiintu yacni markaa ay xayiga ahaayeen walxaal huwa isaguna turkiyun turki uu yahay kaafirun oo gaal ah ow kurjiyin ama kurji uu yahay kurjiga waa adarabijaan dhulkan la yidhaahdo oo markaa boqortooyadii roomaanka soo hoosgelaya wey ow kurjiyin ama nin yacni kurji reer adarabijaan ah oo mushrikun mushrika oo yacni mushrikun mushrika oo laa yacrifu bilcarabi carabiga aan garanayn faishtaraahu waxaa soo iibsaday amiirun amiir oo turkiyun turkiyaa soo iibsaday oo muslim oo laa cilma cindahu agtiisa aan wax cilmi aanayo walaa fahma fahan diineedna aan ilaahay subxaanahu wa tacaala u siinin midkaasi fa biljuhdi dadaal ayaa xaasilun waxaa ugu xasilaya yacni in talafada hadduu ku hadlo bishahaadatayni shahaadateynka hadduuba ku hadlo taasaaba ayaan iyo nasiib ah wuxuu turkiga iyo u soo qabsaday wakhtigaas qayb gaalo ahina waa ku jirtay bulsho ahaan marka la eegana waa bulshada ugu fog luqada carabiga bulshada ugu fog ee uu ku adag yahay waa ayb marka nin noocaasa oo la soo qafaashay oo nin boqora iskala jooga boqorkaasina isaga diinba aanu waxba ku dhaamin
hadduu masaa'ishan kabaa'irta uu ku dhaco aqoonteediiba male wixii lagu xukumi lahaaba cilmigii iyo balaaqii sharciga ah ma gaadhin buu u jeeda hadduuba shahaadateynka ku hadlo taasaaba markaa dadaal ah fain fahima hadduu fahmo bilcarabi carabigii hadduu fahmo xataa yafqaha ilaa uu fahmo macna shahaadatayni shahaadateynka macnihiisa bacda ayaamin maalmo ka bacdi iyo walayaalin habeenno ka bacdi fiihaa ay fabilcaziimati akhada go'aan buu ku qaatay yacnii fabihaa wanicmat waxaa nicmo lahaaday go'aankaa iyo casiimadaa u qaatay uma qad yusallii inuu tukadaa laga yaabo waqad laa yusallii inaanu tukan baa laga yaabo waqad yulaqanu in loo talqiimiyo oo loo afmeeriyo afka loo geliyaa laga yaabaa alfaatixata faatixada maca duuli yacni wakhti dheer in kaana ustaaduhu ustaadkiisu hadduu yahay fiihi diinun maa wuxuun diinihi haddii yacni ustaadkiisa ninka sayidkiisa wuxuun diina hadduu u leeyahay muddo dheer ka bacdi inuu u afgeliyo faatixada ayaa laga yaaba fain kaana ustaaduhu ustaadkiisu hadduu yahay shabiihan bihi mid isaga shabaha famin ayna xaggeebuu yacni uga ahaanayaa lihada almiskiini miskiinkan an yacrifa inuu barto sharaa'ica alislaami shareecada islaamka inuu barto iyo walkabaa'ira dunuubta waaweyn iyo wajtinaabaha ka fogaanshaha yacni inuu dunuubta uu ka fogaado iyo walwaajibaati waajibaadkii iyo waityaaniha inuu la yimaado fain curifa haada arrinkaa haddii la baro muubiqaati alkabaa'iri dembiyada kuwooda ugu waaweyn yacnii kuwa lagu halaagsamayo haddii la baro oo waxudira minha looga digo yacnii oo waculima la baro arkaana alfaraa'idi faraa'idda yacni arkaantooda la baro oo wactiqadaha uu ictiqaado fa huwa saciidun yacni mid liibaanay wahay wadalika kaasina naadirun waa yar yahay annaadiru laa xukma lah fayanbaqii lilcabdi addoonka waxaa u habboon adiguu kula hadlayaa marka islaamnimada ilaahay kuu hibeeyey luqadii carabiga inaad barato ilaahay kuu hibeeyey yacnii galladaa ilaahay uu kuu galay buu ku dareensiinayaa sheikhu fayanbaqii lilcabdi addoonka mu'minka waxaa u habboon an yaxmad allaha tacaala ilaahay inuu ku mahadiyo subxaana wa tacaala cala alcaafiyati badbaadada iyo sabata bixinta ilaahay subxaana wa tacaala luqadii carabiga iyo qur-aankii inaanu garanayn inuu ilaahay uu kaa badbaadiyey oo islaamnimo kuu hibeeyey qalbigaagana iimaan u geliyey yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaani in kuntum saadiqiin fain qiila haddii la yidhaahdo su-aalna la weydiiyo oo la yidhaahdo huwa isagu farada wuxuu ku gabood falay likownihi ahaanshihiisa u ahaaday maa sa'ala inaanu weydiin camaa yajibu calayhi wixii ku waajibayay haddaanu isagu wax garanayn muu culimmada wax weydiiyo hadday su-aashaasi timaado qiila waxaa la leeyahay haada kaasi maa daara fii ra'sihi madaxiisa kuma wareegin su-aashaasi madaxiisaba kuma soo dhicin ayb wala stashcara mana aanu dareemin anna su'aala man cid su-aashiisu yucallimuhu bara arrinkaa bara yajibu calayhi inay dushiisa ay ku waajibta horta waxaaba gallad ilaahaya in ilaahay uu ku dareensiiyo waxbaa kaa maqane waxni ma xalaal baa mise waa xaaraan baa bal horta culimmada weydii arrinkaasi qalbigiisa kuma soo dhicin waman lam yajcal illaahu ilaahay ruuxaan u yeelin lahu isaga nuuran nuur waa iimaankii qalbiga ku jiray uu iftiinsanayey waa sharcigii iyo risaaladii nuurku famaa lahu min nuurin nuur uma sugnaan falaa ya'samu axadun ruuxu dembaabi maayo ilaa bacda alcilmi ilaa cilmigii sharcigahaa masalada xukunkeedii inuu ogaado mooyaan iyo wabacda qiyaami alxujati calayhi xujadii inay ku qumto dushiisa wallaahu allana subxaana wa tacaala ladiifun alla u tudhid badan weeye bicibaadihi addoomihiisa ra'uufun bihim alla u tudhid badan weeye subxaana wa tacaala qaala allahu tacala ilahi wuxuu uhi wamaa kunna manihin mucadibiina kuwa cadaabaya ummadaha xataa nabcaa rasuulan ilaa aan rasuul ka soo bixino ilaa aan rasuul u dirno xujada ku ooga waqad kaana waxay ahaayeen saadatu saxaabati saxaabada madaxdoodii waxay ahaayeen bilxabashati xabashiday ku sugnaayeen markay hijroodeen wayansilu lwaajibu waajibkuna wuu soo degay iyo wataxriimu xaaraannimadaa soo degaysay shay la xarimay cala nebiyi sala allahu aleh wasalam nebiga dushiisay ku soo degaysay falaa yabluquhu maanu gaadhayn shaygaa la xarimay
يعني حكم كيس تحريمه حارني مديسو إلا بعد أشهر بلك بعد مويان فهم يجوا في تلك الأشهر بلها شيء حارني مديسو أن يسوق قاريني معذورونك والله عذر داري بأهايين بالجهل جهل لوجو عذر داري حتى يبلغهم النص إلى النص يعني مركا أسوق قاري حتى يبلغهم إلى أسوق قاري النص نسك أسوق قاري فكذا سيدا سوكله أي يعذر لوجو عذر داري بالجهل جهل لوجو عذر داري كل من مثل مانتيو يعني كل من مثل مانتي لم يعلم أن أجين شيء حكم كيسة حتى يسمع النص إلى نسك أمقله والله تعالى أعلم حاجر وحل يجهده إقامة الحجة روحوا إنه فهموا بيان كان شرعي قاع وضوحني محلال با مسوى حرام با أسقوا بيان كان شرعي قاع أم فهمين حكم كي شرعي قاع هدوشي لقوا أوغي ماي إلهي بوحليه سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون قف كان حكم كان شرعي وإنه عداده مركو عداده حارني مديسي عداده أيام مخالفة أو خلافين مركا الله عقابي أحكامتي كرتب ميسين مركا الله حكمنا يا لذلك قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الشيخ إن بضنبوا مجموع الفتاوى أو كتقريرية أو إلى هذا حجة يعني قفكي خلافة أنه قال لماذا كحكمنا وحوي وحجة الشرعي هيد مركي الروحي عداتي هدي إلى يكون يهي وحمانع كهور استاجين أنا يتشرين أيان مركا أن اعتبارين أن الروح حاس حكم الشرعي مركا إن لقوا قاضي خلاصة وحوي مركز السحر إنه كمد يهي كبيرة من الكبائر وكمد يهي إن اللود دوانين إن أمضى اللوغان السحرية تدبضن بقى أوفر ميل أوفر معايا اختاريا كي يجي وميلها يعني لغا تاغين دمر كي ميلها لغا مقنايو حوغا آدو دبان رجي إن بدن وكمد حقوق دودي أي فلين وايين جانوري بان إمام بورن مارج ما بيش أصدحات بان إمام ما سند بسند بوديبي أيها أتجي وحصي يعني مودين إنه وحيان وقيبك أي وحكوه يهينه ما أنا كوسو دتشنا يقول إنك يسوق بورصدي وتأنا كوكيناي كو حيلي وضيق من فهم وين إلا قبوتشيان ربنا طيب موجودة وحاس أولا مركوين دين الآن تاس دو مركا كوبضان وين لوغن السحرية وين لي هذا يعني السحر كو كبيرة من الكبائر الكبيرة الرابعة كبيرة أفراد وحوي وترك الصلاة صلاة ولا قتلوا قال الله تعالى إلهي وحوله سبحانه وتعالى فخلف وحادب مري أنبياء يددك ونكسني عن كشكين من بعدهم يجا قداش وحادب مري خلف كوهري وأضاعوا الصلاة ضيعي واتبعوا الشهوات كي النفط وحي على سنة سرعي فسوف سبن دنبي يلقون لكل مدونان غيا واد في جهنم وادي يعني تق جهنم كي غي اللي له أي لكل مدون إلا من تاب الروح توبتك يعني مويانه أو آمن الرميي آيات وآيات كعلماء أيود ليشدين روح تارك الصلاة كأهي أما عجز يوهسها وقتها أما حكم كذا هدي دنادي إنه قالوا بيه حقيقة دليشدين إلا من تاب محل قدم يسي وآمن رمي إيمان ملك وقال تعالى إليه وحوله فويل هلاك وحوصق ناضي وادنا للمصلين كوي تكني الذين كوا صفهم يجوا عن صلاتهم صلاة دود ساهون هلمان صنع يعني في صلاتهم صلاة دود لحدود النسيان يسهوي لا إيمان إلهي مؤر الرحمة ديسيان حريستيس قف كستاب صلاة دي سوا كسهوية بل نبي محمد باس سهوية طيب لكن وحول عن صلاتهم ساهون صلاة دودي هلمان صنع وقت جديد بيدب أرجعيان صلاة دي بيهدي إلى يكون يهي قيمه حرمته صلاة أكتود أي كلاهين أيان أكتود كوينين الذين كوي يقوم يراؤون دتك استسي
wayamnacuuna mancinayo diidaya almaacuuna maacuunta yacni dadkii deriska iyo ummaduhu maacuunta waxaa la yidhaha waxyaabaha had iyo goor derisku ay kala qaataan ee ay u baahan yihiin ayay mancinayoona diidayeen wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi ahlu naarkii markuu ka warramayey maa salakakum maxaa idin soo mariyey fii saqara naarta saqara la yidhaha maxaa idin soo mariyey jawaabta koowaada ay bixiyeen waxay yidhahen qaaluu waxay yidhahen lam naku maanan ahayn min almusalliina kuwa tukada kamaanan mid ahayn dhibtana na raacday sababta nalagu dhibay waa sababtaas wa qaala nabiyu sal alla alih wasalam nebigu wuxuu yidhi alcahdu ballankii alladii ballankaasoo baynanaa annaga dhexdayada iyo wa baynahum munaafiqiinta dhexdooda ahaaday alsalaatu salaada weeye faman tarakahaa ruuxii ka taga faqad kafara wuu gaaloobay baynanaa wa baynahum asalaa wa baynahum damiirkan dambe waxaa loo celinayaa munaafiqiintaa loo celinayaa in badan ee dadyowga meelaha wax ka laqlaqbeeya waa khaldaan maxaa yeelay gaalka dhiiggiisa salaada waxaa ka horaysa tawxiidka inuu qiro fain taabuu waaqaamuu الsalaata waaatow الzakaata fakhalluu sabiilahum ama faikhwaanukum fi diin laakiin qofka dhiiggiisa cismada yacni salaada ku hela ee salaadu ay badbaadisaa waa munaafaqa gaalka waxaa badbaadinaya jisyo uu bixiyo waxaa badbaadinaya tawxiidka inuu qiro kadibna yani markaa uu salaaddii la yimaado nebigu wuxuu yidhi waqaala sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi man faatathu ruuxay ka tagto salaatu lcasri salaada casr ruuxay ka tagto xabida camaluhu camalkiisii waa buray ayib waa adilada ay deliishanayaan culimmada qabta taariku salaadku xataa wahsi hadduu uga tago inuu gaal yahay rawaahu lbukhaariyu baa warinaya bukhaari baa warinaya min xadiisi burayda wa canhu waqaala sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yihi bayna alcabdi addoonka iyo wa bayna ashirki iyo shirkiga iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya tarku salaati salaada oo laga tagaa u dhexaysa addoonkii halkan dhig gaalnimadiina halkanay taallaa maxaa u dhexeeya macnaha gaalnimada ruuxa waxaa ka badbaadinaya oo u dhexeeya dayr u ah maxaa u ah salaaddii ayib wa canhu sala allahu tacaala calayhi wasalam waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi man taraka salaata salaada ruuxii ka taga mutacamidan isagoo u kasaya yacni camdi iyo kas uga taga faqad bari'at minhu waxaa beri ka noqotay dimat ullaahi ilaahay dimadiisa ruuxaan salaad tukani maganta ilaahay kuma jiro laakiin salaaddaas wax adigu markaad u soo kacday fii dimat illaahi maganta ilaahay baad ku jirta ilaahay baana wuxuu leeyahay dimadayda iyo magantayda ruuxa ku jira ha ii dhaafina ayuu alla leeyahay subxana wa tacaala qaala makxuulun wuxuu yidhi can abi darin qaalahu makxuulun can abi darin lam yudrikhu makxuul ashaami addimishqi abu dar maanu haleelin laakiin shawaahid kaleu xadiisku uu leeyahay yani marka sheikhu albani wuxuu yidhahdaa waljumlatu yani ana alxadiisa bihada dariiqi صaxiixun bishawaahidihi bilaa rayb irwaa lqaliilka ayuu sidaa ku yidhi 2036 raqamka wa qaala cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi ama inahu arrinkii shanigu wuxuu yahay laa xada nasiib iyo dheefku uma sugnaanin liaxadin ruux fi lislaami islaamka dhexdiisa ruuxaasoo adaaca salaata salaada dayacay isagoo cumar sakaraadkii ku jira isagoo markii la wareemay xaaladihii ugu dambaysay ku jira baa la yidhi salaaddii amiirkii mu'miniintow innaguna annagoo caafimaad qabnaa annagoo laxaadkeennii uu dhammaystiran yahay adigoo saaka caafimaad ku soo kacay baa xoogaa adduunya intayna mashquuliso baa laga yaabaa inaynu ragcadda ugu dambaysa isku soo beegno nasiib kuma leh ruuxii islaamka dhexdiisa nasiib kuma leh ruuxii salaada dayacay oo cumar ibn khadaab u yahay wa qaala ibraahim annaqci wuxuu yidhi man taraka salaata salaada ruuxii ka taga faqad kafara wuu gaaloobay wa qaala ayuub assakhtiyaani ayuub ibni abi tamiimata asakhtiyaani wuxuu yidhi mila dalika sidaasoo kale warawa aljurayriyu jurayri wuxuu yidhi can cabdillaahi bni shaqiiqin can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam asxaabtii nebi maxamed waxay ahaayeen laa yarawna kuwa aan arag shay-an shay
ومن الأعمال أعماش كمدة تركه كتجتان كيسا كفر قال لما أماني أركين غير الصلاة يعني الصلاة دوحي عن حين صلاة إن لقتكم حي صحابة ويقانين قال لما ويقانين وحي كلا عمل إن لقتكم قال لما أما أركين صحابة. طيب أخرجه الحاكم باصوصاري في المستدرك وأخرجه الترمذي الإمام الترمذي باصوصاري دون ذكر أبي هريرة يستقوا عن شيء حديث كان مركع يعني هو قول صحيح كويحي يعني من كلام عبد الله بن الشقيق بوحوليه أبو هريرة أنت ماشي لقى صاره كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وحونا حديثك الصون نقلنا يا إجماع الصحابة أثرتني وحيموتنسا إجماع الصحابة. وقال ابن حزم وحوري في المحلة جلدك كوبية تبنات صفحة سقالي تبنات وحكيري لا ذنب بعد الشرك يعني الذنب قال لماذا كذنب يا مجر وأعظم كوين من ترك الصلاة إن لقته حتى يخرج وقتها صلاة وقت إلى أبح وقتل مؤمن روح مؤمن إلا دلو بغير حق درنا لقدلو. وروى همام باوري أنبأنا قتادة بن دعامة السدوسي عن حسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن حريث ابن قبيصة قالوا حدثني أبو هريرة أيائي ورمي قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحوري أول ما شيء كوغهر يحاسب به العبد أدونك لغا حسابيه يوم القيامة مال كقيام من عمله عمل كيسة صلاته صلاة سوي فإن صلحت هديها جاكتو فقد أفلح واليباني وأنجح وانا قوليستي وإن فسدت هدي فسهادنا فقد خاب واهوغي وخسر وانا خساري أي انضر أي كدعف. يعني حسنه الترمذي الإمام الترمذي في جامع كورن يوون تحسينيي حديثك دار قدنا أي في العلل سجن كجهضي نسائي أي سجن في سننه حديث كجهضي وأنا حديث حسنة وأعطينا ليس صوغ فتشني سجى حديث كي هره الذي قال لماذا كتوس سيمركو إمامك أو كامي أيو أدلة الجمهور أي دليشته وحديث كسوق هذا. وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحوله أمرت وحالي فري أن أقاتل الناس ضدك إن الله دقالهم حتى يشهدوا إلى أي كقران أن لا إله إلا حق لقوا عابد إن نترين إلا الله وألمه يعني وأن محمد النبي محمد رسول الله يا رسولك إلهي ارجي إلهي خلقك وفرنت وصولي بإنوي ويقيم الصلاة أي أوغان ويؤت الزكاة أي قتان فإذا فعلوا ذلك أرنك هذي السميان عصموا مني وإيقا دورين حقيقة دماءهم لي قودة وأموالهم حوله إلا بحق الإسلام يعني إسلام كحق سمويان والروح جهدوه وحدله وقالوا دي لهدو السنة يستحدودي بالقوغي وحسابهم حسابتي سنة على الله سبحانه وتعالى دوشي سيحات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرجل النبا قالوا حري يا رسول الله رسولك إلهي اتق الله نبي محمد وإلهي كبق رسولك إلهي كبق أيو ليه طيب فقالوا حري ويلك ورهوغي قبل ما إنكارك قد عضي ألست سوميه أحق أهل الأرض أن أتقي الله روحا ذاتك أرلد كنول متك أغمضا إنو إلهي كبق خلقك إلهي ويقان سوميه وطين النبي صلى الله عليه وسلم عليه إني أخشاكم لله وأتقاكم له إلهي أنك إذنكو أقنانان إذنكو عبس بدن. قال خالد بن الوليد باوحي رضي الله تعالى ألا أضرب عنقه ميانا لقنت كل فنين من كان نبي محمد وعدالة هذه دري وحكشيغي لقنت ما كل فتامد لا يا رسول الله رسولك إلهي فقال النبي وحوري لا ميا لعله وحمدنيه وحلغيابا أن يكون يصلي يعني إنه يهيمت كذا لغيابا إنه تكذيه dhiigiisa u kaadi salaadi maxay noqotay maanic ninka dhiigiisa mancisay waxa noqotay maxay salaadi ila cadaalada nabi maxamed oo la duro
oo la yiraahdo maadan cadaalad sameyn ninkan ilaahay ka baq markuu leeyahay wuxuu yiri i'dil ya Muhammad cadaalad samee Muhammad waxaad sameynayso wax loo dul qaadan karo maaha markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi wuxuu jawaabay wuxuu yiri faman ya'dil idha lam ya'dil Allah wa rasuluhu ya cadaalad sameynaya ilaahay iyo rasuulkiisu hadaanay cadaalad sameyn asaga fahamku la qalloocday uu isla quman yahay dayib nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alayhi ala ta'minuni wa ana aminun fi as-samaa miyaydan aaminin iyadoo samada layga aaminay yaatini khabaru as-samaa yani khabarkii samada yimaada sabahan wa masaan ayu yimaada faafayn badan baa ku jirta xadiiska iyo xukunka taariku salaadka intaan dhameynaya waqtiga ay ga dhacay وروى الإمام أحمد باورني في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي إنه يري من لم يحافظ روحا إلى وحفظهن على الصلاة صلاة الروحا إلى لم يكن له أمسقنا أنه قيامة مهل النور الضوامة المؤمنين توحي جدك السيرات كيقود بيان يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نور ملئ قال قدمين ولا برهان حجنا أمسقنان ولا نجاة بدبادو يسمت بحنا أمسقنان وكان يوم القيامة مال كقيام وحو هذا مع قارون وفرعون وهامان وأبي جهل وأبي بن خلف رقاصوا لنبو لشرك هذا النقطة ليس إسناده بذاك سند كيس وحصة وسيحوك بدن معها أي إمام كير حكت السنة يا مركز سند كيسو إن نسيحوك بدن وحو يعني كتشرة عيسى ابن هلال السدفي من الليلة الإمام الفسوي باشيغي في تاريخه كشغي مجلد الله شنب قل يشنيتون وحكوت الإمام في ثقات التابعين إنه يحيي حديثكم مركز شواهد كالوهلية وهذه النصوص تاني إذا تشعر وحيك درين سينسا بكفر تارك الصلاة قال لماذا سيك درين سينسا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري لمعاد وكيري ما من عبد أدون مجر يشهد قرية أن لا إله إلا حق لقو عابدين نجرين إلا الله ألم وياه وأن محمد النبي محمد عبده ورسوله أدونك إلهي رسولك سئين وياه إلا حرمه الله إلهي وحك حرمي على النار أيك حرمي متفق عليه فمؤخر الصلاة صلاة متك دبلغي عن وقتها وقتك ذي كدبلغي صاحب كبيرة دم ويمد صاحب واي وتاريخها متك كتغي بالكلية لمانتد أعني وحنوش هذا الصلاة الواحدة الصلاة كلية متك كتغي كمن مد بولمد يهزنا سنيستي أو وسرق وحضي لأن ترك كل صلاة كستئن لغتغو أو تفويتها أما وقت جديد لتقصي كبيرة ودم وين فإن فعل ذلك أرنك هدوصا من مرات الأورتر كان وحكمد نقنيا من أهل الكبائر دم بيده وين ذاتك كل عيب وكمد نقنيا إلا أن يتوب إنه توبت كان مويا فإن لازم هدو لاسمه عاد يرقن كلك ترك الصلاة صلاتك تكتان كذا فهو يستوى من الأخسرين كو خساريب وكمد يعني الأشقياء أيان درد ينصيب درد أي كل على الدور درستي المجرمين دنبيل ياشاء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وأعلى وبالله توفيق.